waxaan ku weydiiyey ilaahay ma kugu og yahay in sagaar luqadda carabiga ku hadlaya xilligan oo ay la hadlayso gacantaada uu ku jiro waa ilaahay igu og waa haya gacantan ku haya saasan ku hadlay subxaan allah sagaar yar oo dhashay oo luqadda carabiga ku hadlayo ayaa lagu arkay duleedka degmada Gurceel subxaan allah waa arrin mucjiso oo la yaab leh haddaba tuuladee ayay ka dhacday arrintaasi Gurceelse meeqa kiiloomitir ayay u jirtaa arrinta mucjisada ah ee lagu arkay dadkii ayaana ka guuray meeshaasi sagaarka yar ee dhashay ee luqadda carabiga ku hadlaya lagu arkay haddaba inta aanu kula wadaagin daawada muuqaalkan lay gare qaybta commentiska noogu reeb fikirkaaga bal arrintan sida aad u aragto muuqaalkanna share gare oo gaarsii bulshooyinka Soomaaliyeed si arrintan mucjisada ah ay u arkaan ay u daawadaan maadaama sagaar yar ee dhashay luqadda carabiga uu ku hadlayo culimo badan arrintaasi ay hadalhayn badan ay ku abuurtay meel Gurceel 15 kiiloomitir wax ka yar u jirta oo markaas ay degan yihiin dad reer Guraa ah ayaa maanta waxa lagu arkay sagaar yar oo dhashay oo luqadda carabiga ku hadlaya sagaarkan hooyadii waa la dilay oo dad markaasi ugaarsata ah ayaa dilay dabeedna haadi kale sida galeerka ama gariirka iyo tukaha ayaa u dhawaawayay oo cuni waayay waa arrin mucjiso ah haddaba arrintaasi sida ay u dhacday iyo meesha ay ka dhacday ayaanu idin hayaa waxaana uu ku bilowday waraysigii aan la yeeshay mid ka mid ah dadkii goobjoogayaasha u ahaa sida tan walaalow arrin mucjiso leh ayaa saakay abaar saacad markay 4 saac ayaan aragnay meel magaalada ugu aadan waqooyi bari oo meel dadkii dadka guuraaga ka kala guureen annagoo ramayna cid ka rarno wiil yar oo 10 jir oo socda oo meel ka soo kaxaysay ay yeeray anoo meel maraya marka wuxuu yiri oo kaala baxaare wiil oo baxadan baalkan ya taagan waxaan kaala arag wiil meeshana aaday wiilkii yarka ayaan u baahnaa yeeran aan tagay haya waxaan tagay baal yar oo baakan ugaarta oo sagaarada liiraa marag waa garanayaa ayaan meesha ugu tagay oo yar oo wax hadda yar oo dhashay marka cid meesha degan oo rabina meesha gaari uga raro oo aan macnaha cid geedi guuraan rabina meesha ka raro baawura meesha u keenay marka cid waxay tiri laba nin oo dhalinyaraha habeen meesha martay biyo naga agtay sagaarayna meesha ku dileen macnaha sagaara oo weyn meesha ku dileen kadib markii ay dileen hooyadii dhashay canuga yarka sagaarka ugaarta kamid ah maxaa dhacay arrinta mucjisada aan u gudagalna maxaa ka dhacay meesha waxaa ka dhacay wiilka yarka 10 jirka markuu arag haysanay markuu ii yeeray waxaan arkay baalkan yarka oo meesha taagan oo sagaarka oo dhashay oo dhawaaqayo baahi naftu kaga dhacayso oo dhawaaqaya oo eray carabi oo la yaabay oo hadda markaan aniga fasiri karin laakiin aan dad culimo ay waxaan wacnay oo magaaladii ka keenay markii la fasirana inuu luqada carabiga ku hadlo macnaha wadaadkiisa baalkii waxaa kor taagnay markaan subxaan baalkan gariirka la yiraahdo iyo gamsasta baasha la yiraahdo iyo waxyaabaha la saasaa kor taagnayo oo xuri karin laakiin waxaan qasri lahayn macnaha ilaahay ka anay adigu meesha ma tagtay oo indhahaaga ma ku soo aragtay isagoo luqadda carabiga ku hadlaya indhahayga saaraanaada qof bilaadan oo macnaha anagu igu horeeyay wiil yar 10 jir ah ii yeeray aniga kala hadlaya waxa wiil kaala waxa ariga wiiri oo meesha baalkan kaala ariga wiiri waa meesha markaan sigada baalku carabiga ku hadla waan dareemay aniga carabiga ku hadlayo oo carabiga si fiican ma fasiri karin mid yar la dhashay ka waa magaalada baawil ku yimaadeen nin wadaada iyo dad badan dad kale badan oo socdaan loo yimid oo reer guuraayo oo socda waan baalkii meeshii waa baalkii dadkii dama way kala carareen waa la yaabay markii ilaahay dhan adiga dad labaatan ka yana suubi meesha waa gartay marka meesha la tagay luqadda carabiga ku hadlayay culimadii ma fasireen oo ma sheegeen waxa uu ku hadlayo sagaarka yarka ah ee dhashay maadaama hooyadii la dilay aniga anaaba la yaabay arrinta waan fiirsayna wax kale leeyahay akhay nimanka wadaadada ka bada fasiray yani waxa ka xasuusta inni kaan faasina walaalaha ka xasuusta kaliya wadaadada marka sidana wuxuu leeyahay baalkan nin shiiqa wadina wuxuu yiri luqadda carabiga ku hadlayo inay hooyadii dhimatay uu sheegaa oo la dilay asaguna macna inuu gaajoon yahay uu sheegaya marka niyo arrinta qadarta marka ummadii argagaxa dhacay waa la yaabay wallahi ay nafkii kula hadlay hadaa si kala noqday marka niyo waxaan rabnaa dadweynaha meesha wax ka dhaceen meesha adoo raaliya meesha wax ka dhaceen Gurceel imise kiiloomitir u jirtaa adiga ugu yaraan oo 15 kiiloomitir ama 18 kiiloomitir la qiyaasay jirta magaalada magaceeda ma la yaqaanaa meel laga kala guro waa laameer hore ugu aadanta meel laameer laga hore ugu aadanta dadku markii arrintaas ay arkeen meeshii ma isaga guureen oo ma ka carareen oo aan fariir ma ka dhacay dadkii waa ummadii ilaahay meesha kulay marka dadkan waa mar hore meesha ka guureen meel laga raaco waayo aniga ciidan saaga gaariga ku raro
ummadii way kala carartay oo dadkii waaba maxdaana dhacay baalkii markaa adiga kulay waan soo qaadnay aniga baalka waan soo qaadnay xaafadiyaan keennay aanaasi naguni wadaada wuxuu yidhi baalka xanaaneeyo yidhi wadaadana waa iska lafteen oo noo fasiriyay luuqadda carabiga bahladii waa cuni waayeen waa qadar ilaahay taas way kor taagnaayeen afkana waa saari waayeen dadka ku daawanaya arrintan waa la yaabi doonaan sidee kugu rumaysanayaan maxaase ugu caddaynaysaa sagaar yar oo dhashay oo luuqadda carabiga ku hadlaya dadkii waxaan ku caddaynayaa macnaha baalkii waan hayaa meeshii ka dhacda waa idinka dadka waa gey karaa saxaafadda waa gey karaa fidiyoyaasha waa gey karaa waa wax waadax oo sax oo dhacay waaye 20 qof hadda ku joognaa 3 qof oo markay ila joogta hadda hadda waa ila joogaa saaca oo ku xaqi kara waxaan ku weydiiyey ilaahay ma kugu og yahay in sagaar luuqadda carabiga ku hadlaya xilligan oo ay la hadlayso gacantaada uu ku jiro waa ilaahay ugu waa hayaa gacantan ku hayaa saacan ku hadlay